السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجka loo taray wuu furmay waa la xareysan karaa waan xareeyay waxaan rabaa markii aan tuso sida loo xareeyo soo dhawaada intaan xareynin horta xareynta iyo gilgilintu way fududahay wax oo dhib badan ma aha magacaaga la geliyo information la geliyo wax dhib badan ma aha laakiin waxa dhib badan some of the information uu ka mid yahay sawirka marka let's go over maxaa la jiro waxyaalaha la iska rabo ee ugu muhiimsan waan soo print gareeyay adigana way ku fiican tahay inaad print gareyso requirementiga waa db file 22 page weeye soo baxso qofka kula xareynaya ama adiga hadda xareysanayso is hordhig step by step akhri anigana waa kula dul maraya wixii muhiim ah oo aad isleedahay ma garanaysid baan rabaa inaan meeshan kagala dul maro soo dhawaada marka barnaamijka haddii aadan subscribe saaran youtube-ka subscribe hala saaro gambaleelkan hala furto marka kow waxaan ka bilaabeynaa waa dhowr iyo 14 qodob oo la rabo in lagu buuxiyo foomka waan idin tusayaa si loo buuxiyo waan la buuxinayaa waa easy laakiin terminology-ga qaarkii dadka qaarkii ma yaqaana marka waxaan rabaa qofkii asagoo gurigiisa jooga oo ku rafaadin oo ku dhiboonin intuu dhageysto barnaamijkan ama videogan intuu dhageysto in uu raaco joojiyo buuxiyo foomka one by one uu u buuxsado hadduu buuxsan karo laakiin sidee man maxaa la dhihi jiray ugu fudud aan u fahamnaa barnaamijkan let's go marka aan barnaamijka fahamno number 1 waa name waxaad ku buuxinaysaa name waa magac last name waa magaca awowga family name waa the same last name iyo family name waa isku mid waa magaca awowga waay first name haddaad maqasho waa magacaaga hore aniga hadda magacayga hore waxaa la dhahaa maxamed middle name waa magacii aabbaha waaye sidii uu u qoran yahayna waa very important hadhow maxaa la dhihi jiray baasaboorkaaga ama baasaboorkaad ku bixi doonto hadda lagama rabo ku buuxinta baasaboor layskama rabo laakiin hadhow baasaboor baa lagaa rabi doonaa markaad bixayso unless aad qaxooti tahay qofka qaxootiga ah baasaboor lagama rabo marka name waan sheegnay waa magac last name ama family name waa awowga magaciisa first name waa magacaaga koowaad middle name waa magaca aabbaha marka saas meesha slotska u bannaan saaha loogu buuxiyo marka magacyada dhib ma laha it has to be hadhowna wax oo aad proof gareyn karto oo shahaadadaada u eg ama baasaboorkaaga magaciisa saxda ahaa ku qoran inuu noqdo waayo dadka qaarkii waxay dhahaan waan ku guuleysanay markii imtixaanka nalagu yaray ama interviewka nalagu yarayna waan ku dhacnay marka si aad ugu dhicin just follow in waxaaga sax yihiin oo been iyo ruwaayad aysan ku jirin number 2 waa gender waxaa la dhahaa maxaa la dhihi jiray lab iyo dhadig nin ama naag female ama male marka haddaad nin tahayna male baad ku tigaraynaysaa haddaad dumar tahayna female date of birth waa maalinka dhalashada day baa laga bilaabay day waa maalinka aad dhalatay soomaalida badanaa waxay dhasheen January 1st marka dayga aad dhalatay weeye day month waa bishaad dhalatay bisha January 01 aan ku buuxin hadday February tahay 02 hadday March tahay 03 haddii ay tahay muxuu ahaa sagaalaad 09 bisha sagaalaad tobnaad waa 10 12 waa December marka saas ugu bixinaysaa iyo year sanadka aad dhalatay waa very important inaad asagana ku bixiso hadhowna waxaana meesha ku bixinaysa inay hadhow dokumentigaaga lagaa rabo markii aad guuleysato ilaahay kugu guuleeyo waxaa lagaa rabaa in ay waxa aad sheeganayso meesha ku qorayso iyo waxa hadhow aad baasaboorka ama dokumentiga aad la imaan doonto ama shahaadada la imaan doonto ku qoran inay is yeeshaan city where you were born meesha ama magaalada ku dhalatay country waa number 4 taas number 5 country where you were born badanaa Soomaalida ku dhasheen ninka Kenya ku dhashayna waa balay garan kara Ethiopia ku dhalatay Ethiopia ku qoranaysaa marka qof walba meesha ku dhashay Djibouti ku dhashay Djibouti buu ku qoranayaa qof walba meesha ku dhashay ayuu ku qoranayaa country of eligibility wadamada hadda aan sheegno dhan waa eligibility dad baa isoo weydiiyey jooga wadamo kale ama muxuu jiray Europe jooga ama meelo kale jooga hadiiba aad dhalashadii hore ay ahayd inaad Soomaali ku dhalatay waad apply gareysan kartaa laakiin hadii for example anoo kale Soomaaliyan ku dhashay Canada dhalashadan haystaa muxuu ahaa waan apply gareyn karaa laakiin ruuxii halkan ku dhashay isagoo aniga aan dhalay kale hadda caruurteedu kale halkan ay ku dhasheen ma apply gareyn karaan marka taana saa la socda number 7 waa internet photograph waa meesha dhibka dhan ka taagan yahay waa sawirka barnaamij kooban inaan kasoo sameeyay weeye haddana inta waan kusoo sheegi doonaa sawirka waa very important waxyaalaha ugu horeeya computerka waxaan horta computer baa dad kala dooranaya
waxa ugu horeeya ama lagugu diidayo ama lagu qaadanayo waa sawirkaas haddii sawirkaagu wuxun yahay ama lagugu talgelin marka horeba kaama yeelayo systemka hadduu kaa yeelo oo sawirkaagu xumaadana waa lagu tuuraya marka sawirka aad isaga ilaaliya dad badan oo dhahayaan arkayay telefonka ma ka buuxsan karaa telefon waa ka buuxsan kartaa laakiin sawirka inuu kaa saxnaado oo sawir diyaarsan oo lasoo diyaariyo specification loogu talgalay uu yahay baa muhiima marka sawirkaas aad hal isaga ilaaliyo mailing address waa isagana in lagu buuxiyaa addresskaaga khasab maaha meelaha qaarkood optional weeye laakiin haddana inaad address ku buuxsato dadka qaarkii bio box leeyihin Kenya oo kale Soomaaliya I don't think bio box inay leedahay laakiin haddana street name iyo waxyaalaha la isaga qoraa iyo suuqa bakaaraha iyo xamarweyni waxbaan ku qorqoray anigaba marka taa oo la socda phone waa optional telephone number waa optional email waa very important inaad ku qorato meeshaas hadhow marka log in sameynayso emailkaas waa lagaaga baahan yahay haddii qof uu kula xareynayo waa inaad xogtan aan sheegayo dhan uu qofkaas aad u sheegtaa at the end of the day markuu dhameeyana warqad taasoo kale uu ku print gareeyaa oo sheegaysa informationkaaga oo dhan iyo sidii lagugu xareeyey iyo muxuu ahaa date of birthkaagi magacaagi iyo confirmation number waxa ugu muhiimsan waa confirmation number meesha aan calaamaday ku qoran tahay confirmation numberka inuu ku siiyo emailkaagana aad haysato oo mar walba access u leedahay bisha May 2013ka 2023 I mean 2023 ayaa la eegi doonaa in lagu guuleystay in kale marka sawirkaas waa muhiim mailing address waa important in la geliyo country where you live today meesha haddaad ku nooshahay phone number email address waan sheegnay ka soco number 12 highest level of education waxaad ku qoraysaa haddaad jaamacad ka soo baxday haddii aad master haysato haddaad PhD haysato waad ku qori laakiin waxa ugu muhiimsan hadda loo baahan yahay waa high school marka high school in meesha qofkii uu ka soo baxay waa muhiima waa one of the eligibility ama 2 years work experience marka hore waan idin sheegay marka inaad work experience leedahay iyadana barnaamij in laga sameeyo u baahan tahay oo la ogaado 2 years kaas waxa la iska rabo exactly work experience dad far badan waxaa jira experience loo shaqeeyo laakiin aanan u record ama 2 sano work experience 5 sano la soo dhaafay aan u fahamsanayn marka iyadana waxaan ka sameynaynaa inaan dadku u fududeyno oon u sharaxno laakiin high school certificate is important in la helo oo la buuxiyo I think Soomaalida intooda badan way heli karaan waxaas okay number 13 marital status dad badan baa waxay soo weydiinayeen xaas baan leeyahay ma qortaa ku aan xaas lahayn wuxuu ku weydiinayaa waxaa la yiri muxuu ahaa haddaad qorato xaas waa la helaa waxaan waa nasiib ama xaas qora ama ha qoranin habka aad u buuxisay ku xiran haddii wax fiican aad buuxisatay oo foomka si fiican u buuxisay sawir fiican aad gelisay nasiibkaagana uu fiican yahay inaad heshaa laga yaabaa DV visa lottery haddii kalena ma helaysa laakiin xaasan ku qortay iyo kuma qoran ma aha marka current marital status waxaana fiican mar walba inaad runta iska sheegto haddaad reer leedahay inaad dhahdo reer baan leeyahay haddaad reer leeyahay inaad ku qorato reer ma lihi marka current marital status waxaa weeye xaaladda hadda la taagan yahay marital statuskaaga siduu u yahay ama inaad reer leedahay iyo inaad reer lahayn inaad widow tahay all of this lagaa rabaa inaad separate tahay gaalada waxay yaqaanaan wax la dhaho separate qofkii way isdagaalsan yihiin way kala maqan yihiin oo maba isla noola marka all this waa la iska rabaa in aad meesha ku qorto haddaad been ka sheegto markaa waxaad qoranayso failure to list your eligibility spouse nin baad leedahay maad qoran caruur haysataa haddii adi beenaha isku qasqasto dadkan way ogaan karaan beenaha la isku qasqasay badanaa marka waxaa laga rabaa sida aad og tahay ee saxda ah inaad mar walba aad ku buuxsato caruurtaada sidoo kale ninkaaga hadduu jiro nin ood leedahay ama naag aad leedahay waad ku qoranaysaa caruurtaada waad ku qoranaysaa kullina sawiraha laga rabaa sawirka specificationkiisana waa gooni waana soo gelin doonaa meesha insha allah that is number 14 marka su-aalo iyo jawaab fara badan baa jira oo la isweydiinayay iyaguna insha allah gooni baan maxaa la dhihi jiray aan u sameynaynaa oon u kala qaadqaadaynaa barnaamijkan bil buu socon doonaa wuu bilowday ilaa iyo November bilowgeedana wuu socon doonaa first week of November xilli hore ma la xareeya xilli dambe ma la xareeya waxaana waa iska nasiib saan sheegnay marka let's go for aan buuxino marka foomamkii aan buuxsano let's go ilaa ay meesha ugu dambeyso asxaabay linkiga waan soo saaray waxaan soo saaray TikTok-gayga halkan YouTube-kana waan soo gelinayaa marka la socda haddaad Google garanaysana waxaad Google garanaysaa DV program
state.gov website-ka waa dvprogram.state.gov markaad gasho calaamadaas kusoo baxaysa marka ugu horeysa dhahda submit ba calaamadana kusoo baxaysa calaamadaasaad screenkaad raacaysa hadda aan meesha ku duubayo KHWEH submit baa leedahay waxaa kusoo baxaya markaa last name or family name waa magaca ugu dambeeya awowgaaga waaye kaasaad ku buuxinaysa aniga cali baan ku buuxiyey first name waa magacaaga ugu horeeya magacii ugu horeeya maxamed baa la dhahaa maxamed baan ku buuxiyey middle name waa magaca aabaha isaguna maxaa la dhihi jiray middle name magaca aabaha weeye isagana saas ku buuxinaysaa hoos waxaa ku qoran no first name or ka kalena no middle name haddaad lahayn oo laba magac uu kugu qoran yahay baasaboorkaaga iyana waad ku bedeli kartaa waxaad dhihi kartaa magacaas malihi male and female kuu soo baxaya marka male and femalekii waad ku qoraysaa hoos waad kala garanaysaa marba cidda aad tahay haddaad dumar tahay haddaad rag tahayba date of birth baa soo haray month waa maalinka bisha weeyaan ka wadaa iyo day oo maalinka ah iyo year oo sanadka ah ayadana saas ugu buuxi birthday marka waa inta birth city aan ka wadaa inta birth city magaaladii aad ku dhalataa lagaa rabaa marka inaad ku buuxiso ani muqdisho aan ku qoray meeshaas marka muqdisho meesha lagu qorta ama nin walba meesha ku dhashay kii Jabuuti ku dhashay kii Gaaris ku dhashay kii meel kale ku dhashay meesha ku dhashay laga rabaa marka meeshaad ku dhalatay baad ku qoranaysaa number 5 maxaan ka wadaa wadankii waaye marka xageed ku dhalatay waaye waa you born wadankii aad ku dhalataa la iska rabaa marka wadanka geli waxaad imaanaysaa marka meesha ugu dhibka badan waa photo instructions sawirka inaad iska soo hagaajiso oo aad sawir qurux badan ka dhigto oo macnaha background cad leh oo kiyaala aada qabin wejigaaga uu muuqdo kaamirada si toos u fiirinayso weliba waxaan idinkula talin lahaa qof professional oo yaqaana sawirada inuu ka qaado haddii adiga aad taqaan aniga hadda markaan barnaamijka idiin diyaarinayo waxaan damcanta sawir iska qaado isla marka telefonkii inaan kasoo geliyo it takes me time inaan isa sawiro oon soo geliyo background cad sameeyo time ay ugu qaadatay marka computerkan keenay intaan sawirka soo qadan computerka keenay that's easy marka inaad kala aad specification loogu talagalay aad geyso aad computer ka geyso saas ku fudud dadka inta badan waxay ku leeyihiin telefonkeygii baan ku qaaday sawirkay ma gelin karaa specifications gooni uu u baahan yahay wuu kaa diidayaa hadduusan sax ahayn marka sanadkii hore sawirka ahaana ha gelinina waxyaalaha dadka disqualified ka dhiga ayay ka mid tahay sawir sanadkii hore ahaa ma geliyaada sawir sanadkii hore ahaa ha gelinin waxaa laga rabaa sawirka inuu ilaa 6 bilood uu yahay waxna big deal ma sawirka inta iska qaado dad computer haystaan computerka ku hagaajisan haddii kalena qof professional ah oo yaqaanaad leedahay ii hagaaji haddaad computer haystaan computerka intaad gelisun baad leedahay edit kadibna 600 iyo 600 aa gelinay very easy idana barnaamij yar oo kooban aan ka samayn doonaa ciddi xiisaynaysa marka meeshaas choose new photo waxaan rabnaa inaan sawir baan soo diyaariyey inaan sawirkaas meeshaas gelino haddii kalena ma naga qaadanayo wakaasa sawir baan soo qabtay waan geliyey sawirkii let's see how it looks like marka wakaasa sawirka waa gelinay wuu qaatay marka waxaa soo haray mailing address markaan sameynaya barnaamijkan oon saa u duubayey waan ka macnaha waxaan siri optional ku qoran ka soco waan ka socday laakiin hadhow formka markaan dhameynayo buu diidi doonaa marka waad arki doontaa inuu diiday waan kusoo celinaa marka haddii aad macnaha wax qalado oo wax sidii la rabay u sameyn weydo uu ku diidaya marka haddana waxaa imaaday country where you live today meesha aad maanta ku nooshahay baad gelinaysaa Soomaaliya baan ku qoray marka Soomaaliya baan macnaha assume garanahay in la joogo phone number marka aad Kenya joogtana phone number-kaaga ku qoranay telefonkaaga hadaad Soomaaliya joogtana kaaga hadaad Djibouti joogto kaaga Ethiopia hadaad joogto kaaga nin walba meeshuu joogo numberkiisa telephone numberkiisa ku qoranaya optional ah hoos kaga qoran macnaha qasab ma aha in aad telefonka leedahay is not must oo telefoon ku qortid meesha optional macnaheedu waxaa waaye waa qasab ma aha waaye optional hadaa maqasho marka xaalkaas waa optional
laakiin anu number baan isaga qorayaa. I'm guessing muqdisho inuu yahay. I'm sorry lacala haddii oo qof real uu noqdo numberkaas aniga iskaga qoray un 252 oo furihii ah plus aan ka hormarisiyey 6188 22 marka waxun baa iskaga qoray adiga just magaciisi ah number iska qiyaasan ku qoray. Email address is very very important. Email address waa very important. Inaad access u leedahay oo usernamekiisa iyo passwordkiisa haysatana waa muhiim. Muxuu ahaa hadhow markaad jeegaraynayso bisha May waxaad ku jeegaraynaysaa emailkaaga. Probably inay notification kusoo diraan oo ay jeegaree ku dhahaan waa macquul. Confirm email marka email ku qorto hoos waxaa ku qoran A iyo B waaye emailka email addresska kan horaad ku qoraysaa haddana confirm ay ku leeyihiin. Waa confirm garaynaysaa emailka confirm garaynaysaa marka emailkaad ku confirm garaynaysaa haddana waxaad imaanaysaa marka married meesha uu married leeyahay. Allahu mustacaan emailka markaad dhaafto okay married high school haddaad married tahay haddaad married ku qoray high school ku qoray halkaas then submit baan iri submit markaan iri marka wuu diiday wuxuu leeyahay waxbaa ka si ah wixii iga si ahna wuu ii sheegayaa red buu ku qorayaa calaamadihii si wax ka ahaayeen marka addresska waaye ma gelinin address marka hore address maanan gelinin marka addresska ma gelinin haddaan gelinaya marka addressaan gelinaya xamar weyne iyo waxbaan iska gelinaya bakaare iyo ilaan real address ma jiro meesha marka waxbaan ku qorqoray waxaan ku qorqoray waad arkaysaan baan u malaynayaa continue aan dhahay haddana wuu diiday mar labaad wuu isdiiday. Okay address line is required. Okay address one line is required. Okay haddana addresskan saxinaa waxaan ku qorayaa marka waxaa la isaga qorayaa dukaanka Xaldoon marka YouTube-kayga waxaa la dhahaa Xaldoon iyo Xikmad TV ala YouTube-kayga marka dukaanka Xaldoon aan isaga qoray waan ku buuxiyey addresskii raac kadibna let's say continue submit. All right marka waxaan u maleynayaa markaan waa qaatay address information aan ku qoray meeshuu leeyahay iska jeegaree waa iska jeegaraynaysaa waxaaga inay sax yihiin. Maxamed Cabdi Cali aan ku qoray it's just imaginary magac ma iskaga soo qiyaasay oo meesha ku magaciis gareeyay and then submit baan leeyahay. Wow successful diyaar weeye successful weeye uu leeyahay waana very important page kaas inaad print garaysato ama aad meel fiican dhigato si hadhow aad ugu raadsato inaad guuleysato in kale guul baan idin rajeynayaa. Muxuu ahaa waxa ugu muhiimsan halkaas confirmation number meesha entrance name ku qoran tahay hoosteeda confirmation number ku qoran marka ani page waan print garaynayaa si aan meel u dhigo laakiin just waxaan rabaa inaan idin tuso inuu page kaas important yahay. waxaan maqlayay haddaan print garaynayaa marka waxaan maqlayay dad baa loo buuxiyaa marka loo buuxiyana page kaas laga haystaa haddii lacala muxuu ahaa uu guuleys qof si lacag badan looga qaato marka page kaas qofka ka qaado username-kaaga iyo password-kaaga inaad garato muhiim weeye. magacaad ku buuxsatay iyo daadii aad xilliga date of birth-kaaga meeshuu ku qoran yahay digital signature hataa meeshuu ku qoran yahay information-kaadi meeshan ku idil yahay DV 2024 submission confirmation entry received macnaha waxaa weeye waa lagaa helay waa lagaa hayaa inaad apply garaysay DV lottery 2024 marka 2024 baa lagu bixi baa laleeyahay laakiin 2023 May waxaad ogaanaysaa inaad guuleysatay in kale guul iyo baraare iyo khayr baan idin rajeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah.